waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay oo idiin hayo calanka TV qodobada aad ku daawan doontaan wararkeennana waxaa ka mid ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo qaab cusub ula tacaamulaya doorashooyinka ka dhici doona gobolada Gedo sidoo kale Jubbaland oo saameyn xoog leh doonaysa inay ku yeelato doorashooyinka baarlamaanka ka soo bixi doona gobolka Gedo gaar ahaan magaalada Garbaharey loolan adag oo u dhaxeeya Axmed Madoobe iyo madaxweyne Farmaajo iyo kaartada cusub ee la soo baxday filla Soomaaliya taasoo dabarjibin xoogan ku noqotay damacii Axmed Madoobe Saciidani iyo Ra'iisul Wasaare Roble ay ku doonayeen inay uga farmaroqsadaan doorashooyinka dhawaan lagu qaban doono magaalada Garbaharey iyo gobolka Gedo magaalo cusub oo ay doonayaan inay u wareejiyaan doorashada mucaaradka oo kaalmaysanaya Ra'iisul Wasaare Roble oo la ogaaday haddaba waa magaaladaasi yeysa tahay cidda ka garab siinaysa Axmed Madoobe marka laga reebo Ra'iisul Wasaare Roble dowladda Kenya saameyn intee leeg ayay ku leedahay in magaaladaasi loo soo wareejiyo doorashada golaha shacabka ee gobolka Gedo barnaamijkeena ayaan si fiican ugu faaqidi doonaa dhinaca kale damacii Saciidani uu ka lahaa Cali Gudlaawe oo burburay iyo isagoo mar kale isku dagay inuu xudxudasho ku bilaabo madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdikaari Qoorqoor kulan qadka taleefanka ah oo ku dhex maray ayaan xoga sir ah oo muhiim ah idinkaga haynaa daawadayaal haddaba maxay ka wada hadleen wajigabax caynkee ah ayuu la kulmay Saciidani kadib markii uu ballanqaad u fidiyay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdikaari Qoorqoor haddaba daawada waxaan kula wadaagi doonaa xogo iyo arrimo xasaasi ah oo isdhaafsadeen madaxdaasi ballanqaadka Saciid Cabdullaahi Dani iyo eedeymo u jeediyay madaxweyne Farmaajo qodobadeena ayaad ku daawan doontaan dhinaca kale safiirka u fadhiya Soomaaliya dalka Djibouti Salaad Cali Jeelle ayaa ku guuleystay inuu soo dhiciyo dhul dowladda Djibouti ee ka haysata Soomaaliya oo ku yaala isla dalkaasi Djibouti iyo sidoo kale hanti dowladdu lahayd oo ka mid yahay bangiga dhexe Salaad Cali Jeelle ayaa ugu baahan celiyay dowladda Djibouti in laga dadaalay in bangiga dhexe qaybtiisa labaad loo soo celiyo Soomaaliya iyo sidoo kale dhul ka maqnaa oo ku yaala gudaha dalkaasi haddaba Salaad Cali Jeelle ayaa u mahad madaxweynaha dalkaasi Ismaaciil Cumar Geelle oo gacan ka siiyay in dib loo helo bangiga dhexe iyo sidoo kale hanti ka maqneed shacabka Soomaaliyeed oo dib u soo celisay dowladda Djibouti warbixinteena ayaad ku daawan doontaan daawadayaal qodobada iyo kuwa kale oo xiiso badan ee barnaamijkeena ku soo bandhigi doona fadlan daawada haddii ay tahay marka koowaad aad soo booqato channelkeena calanka TV subscribe dhoo program balka si aad noqoto daawadaha koowaad ee barnaamijyadeena aan ku bilaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo filla Soomaaliya ayaa khidad cajiib ah u dhigaya magaalada Garbaharey si doorashadu ay ugu dhacdo Axmed Madoobe uusan wax saameyn ah uga yeelan gudoomiyaha gobolka Gedo iyo dadka deegaanka ayaa iska kaashanaya sidii Axmed Madoobe qadka looga saari lahaa maadaama uu hadda damac weyn ka qabo sidoo kalena aan wax heshiis ah laga yeelan arrimaha Gedo shirki golaha wadatashiga qaran oo ku doonayay in gacanta loo soo geliyo gobolka Gedo Axmed Madoobe Ra'iisul Wasaare Saciidani iyo siyaasiyiin kale oo mucaarad ah ayaa qorsheynaya iyagoo kaashanaya dowladda Kenya in doorashada golaha shacabka ee lagu qabanayo gobolka Gedo loo soo wareejiyo degmada Celwa si Axmed Madoobe uu gacantiisa ugu maamusho Saciidani oo naflacaari ah xildhibaanadii ugu badnaayna lagala wareegay ayaa ku mitidaya sida uu gacanta ugu dhigi lahaa xildhibaanada lagu dooranayo magaalada Garbaharey ee gobolka Gedo balse dadka deegaanka maamulka iyo shacabka ayaa ka diiday Axmed Madoobe in xildhibaanadaasi gacantiisa ay soo galaan iyadoona filla Soomaaliya wakiilo ka jooga magaalada Garbaharey ee arrintaasi karkarinayaan sidoo kalena ay doonayaan in la dedejiyo doorashooyinka dhawaan lagu wado inay ka dhacaan magaalada Garbaharey filla Soomaaliya ayaa doorkeeda ciyaaraysa in ay iska hor keento dadka shacabka ah iyo sidoo kale maamulkaasi maadaama ay diidan yihiin in ay madaxweyne Farmaajo cid aan ahayn soo baxdo laba maalin ka hor ayay ahayd markii Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu si xoog ah kursi uga soo qaatay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug shacabka reer Gedo ayaa arrinta oo kale ka cabsanaya
iyagoona sheegay inaan Garbaharey meel aan ahayn doorasho ka dhici doonin sidoo kalena Axmed Madoobe uu doonayo inuu wax walba gacanta u geliyo Saciid Cabdilaahi Dani gudoomiyaha degmadaasi ayaana sidoo kale warbaahinta u sheegay in qorshoodu uu yahay in doorashadu ay dhawaan dhacdo iyadoo dhawaan ay ku wadaan in la shaaci doono maadaama sida uu sheegay ay u madax bannaan yihiin doorashada golaha shacabka ee ka dhacaya deegaanada gobolka Gedo gaar ahaan magaalada Garbaharey haddaba Axmed Madoobe ra'iisul wasaare Roble iyo Saciid Dani maxaa la gudboon haddii ay gacanta ku dhigi waayaan xildhibaanada ka soo baxaya magaalada Garbaharey ee gobolka Gedo oo qodobka aan commentiga uga doodi doono daawadayaal dhinaca kalena Saciid Cabdulaahi Dani ayaa damaciisi ahaa madaxweynaha maamulka Hirshabelle ku guuldareystay wuxuuna u weeciyay dhinaca Galmudug warar lagu kalsoonaan kara ayaana sheegaya in Saciid Cabdulaahi Dani iyo madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ay yeesheen kulan xasaasi ah oo qadka taleefanka ah iyadoo Saciid Dani uu waqti badan la hadlayay madaxweynaha maamulkaasi isagoona isku dayay inuu ka dhaadhiciyo in madaxweyne Farmaajo aan la isku haleyn karin ballanqaadkiisa balse isagu uu boqolkiiba boqol u ballan qaadi doono haddii uu wadanka xukunkiisa qabto in uu ra'iisul wasaare siin doono Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor balse dood iyo hadal dheer kadib waxaa dhabarka loo jeediyay Saciid Dani iyadoo lagu wargeliyay nin ka adkaan waayay maamulka Puntland inuusan waxba ka qaban karin Soomaaliya sidoo kalena aan la isku haleyn karin ballanta uu qaaday Dani ayaana lacag ugu bedelay in xildhibaanada dhiman ee magaalada Gaalkacyo uu lacag uga gadan doono madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor waxaana loo sheegay in lacagtaasi ra'iisul wasaare Roble loogu dhiibi doono iyadoona ay tahay lacag laga soo qaaday Imaaraadka Carabta kadib markii Axmed Cabdi Kaariye uu ka cabsaday in uu ka cabsanayo inuu ku boodi doono wada hadal dheer kadib Saciid Dani ayaa ku fashilmay inuu ka dhaadhiciyo Axmed Qoorqoor in uu ku boodo madaxweyne Farmaajo sidoo kalena uu xildhibaanada maamulka Galmudug isaga hoos keeno kulanka oo waqti dheer qaatay ayaa lagu kala tagay balse wararku waxay sheegayaan in Dani uu sheegay inuu u imaan doono magaalada Gaalkacyo markii madaxweynuhu halka u imaado arrimaha doorashooyinka wararka kale ee xiisaha badan ee aan barnaamijkooda kugu haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ku guuleystay inuu dib ugu celiyo safaaradda Soomaaliya bangiga dhexe qaybtiisa labaad Soomaaliya ee dalka Djibouti iyo sidoo kale hanti dawladda Soomaaliya ay lahayd oo ay gacanta ku haysay dawladda Djibouti safiirka Soomaaliya oo fadhiya dalka Djibouti Salaad Cali Jeelle ayaa la sheegay inuu ka gudoomay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle isagoona markii hore ka codsaday in aatada ka maqan dalka dib loogu soo celiyo iyadoona loo marsiinayo safaaradda ummadda Soomaaliyeed ku leedahay dalka Djibouti haddaba codsigii safiirka oo loo tixgeliyay ayaa shalay lagu guuleystay in dawladda Soomaaliya ay gacanta ku dhigto bangiga dhexe Soomaaliya iyo dhul kale iyo sidoo kale hanti uga maqnaa dalka Djibouti haddaba halka waxa inooga wararkeennii fadlan daawad haddii ay tahay marka koowaad soo booqato channelkeena Calanka TV subscribe oo furo gambalka si aad ugu daawadaha koowaad ee barnaamijyadeena